kani waa wadaad iyo siyaasi caan ah wuxuu ka mid yahay shakhsiyaadka ugu saameynta badan Soomaaliya waa hogaamiyaha mucaaradka Soomaaliya ee ka soo horjeeda dawladda uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh waa asaasihii midowgii maxkamadaha Islaamiga wuxuu dagaal ba'an la galay kooxdii la magac baxday argagixisada la dirirka waa madaxweynihii toddobaad ee Soomaaliya 25kii bishii Juulaay sanadka markuu ahaa 1964 ayuu Shariif Sheekh Axmed ku dhashay degmada Mahadaay ee gobolka Shabeellada Dhexe ee Soomaaliya waxbarashadiisa islaamiga ah iyo quraanka kariimka ayuu ku qaatay deegaanka uu ka soo jeedo sidoo kale isagoo yar ayuu bartay luqadda Carabiga culumta islaamiga ah wuxuu ka bilaabay macahadka Sheekh Suufi oo xiriir la leh jaamacadda Al-Azhar ee dalka Masar 1990 wuxuu jaamacado ku soo dhigtay wadamada Liibiya iyo Suudaan halkaas uu shahaadooyin uga soo qaatay culumta sharciga iyo shareecada islaamka magaciisa ayaa si weyn u soo shaacbaxay markii uu noqday gudoomiyaha maxaakiimta islaamiga kuwaasi oo dagaal la galay hogaamiye kooxyadii hubaysnaa waa wadaad siyaasadda ku soo galay soo furashada mid ka mid ah ardaydiisa waa hogaamiyaha kacdoonka looga soo horjeestay mooryaantii Muqdisho aad loogama aqoon Shariifka meel ka baxsan aaga ku yaalo dugsiga sare ee Jubba ee xaafadda Tawfiiq halkaasi uu ku dhigi jiray juqraafiyada iyo taariikhda sanadihii 90meeyadii iyo horaantii 2000 maalin maalmaha ka mid ah ayaa laga afduubtay arday ka mid ah ardaydiisa hogaamiye kooxyada Muqdisho mid ka mid ah ayaa madax furasho u afduubtay Shariifka ayaa qaatay isla markaasi go'aan aysan qaadanin shacabkii magaalada Muqdisho oo ah in la iska dhiciyo hogaamiye kooxeedyadan isagoo ka anfariirsan falkan ayuu Shariif isku dubay ciidan ku guuleystay inay soo daayaan ardaygaasi guushan ayaa ku dhalisay inuu hakin karo ganacsiga madax furashada ku dhisan ee xaafadda CC ee uu deganaa waxaana loo doortay madaxa maxkamadaha islaamiga ee CC taasoo badurbadii cagta marisay burcadii Tawfiiq sheekha wuxuu yaqiinsaday in dhammaan burcad oo idin la ciribtiri karo haddii lagu dhiirado wuxuuna markaasi u qalab qaatay qorsho geesinimo leh oo lagu farsameyn karo dalad ay ku midoobaan dhammaan 30 maxkamado beeleed ee Muqdisho ka jiray iyadoo loo haystay waxaan suurtagal ahayn xirigaasi Shariifka wuxuu ahaa tusaalihii nabadda ee 6 bilood ee taariikhda ahayd taas uu si weyn uga dhex muuqday doorashadii madaxtinimo 2009kii 10 nin oo ka wada yimid dhanka dawladii uu hogaaminayay Cabdullaahi Yuusuf wareegii ugu horeeyay waxa ku soo baxay 6 nin oo ugu horeeyo Shariif Sheekh Axmed wuxuuna ka helay 215 cod halka rag ay ka mid yihiin ra'iisul wasaarihii hore Nuur Caddi uu helay isagana 59 cod maslax isagana waxa uu helay 60 cod saddex kale ayaa helay codad inta ka sii hooseeya waana ay wada tanaasuleen dhamaantooda marka laga reebo maslax uu ku adkaystay tartanka wareegii ugu dambeeyay wuxuu Sheekh Shariif kaga adkaaday doorashadii maslax 293 cod maalin kadibna waxa loo caleemay saaray xilka madaxweynaha waxa uu xilka isu soo taagay mar kale 2012kii isaga oo maleynayay inuu ku guuleysan doono madaxtinimada laakiin wuu ku qasaaray waxaana ka guuleystay Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu helay madaxweyne Xasan Sheekh 190 cod halka Shariif isagana uu helay 70 cod hadda Sheekh Shariif saaxiibkiisii hore ee siyaasadda ayuu mucaarad ku yahay waxa la filayaa mucaaradka inuu hogaamiyo u noqdo si looga soo horjeesto madaxweyne Xasan Sheekh